muwaadiniin Soomaaliyeed oo ka kooban shacab iyo ganacsato ayaa isugu yimid kulan ay ku muujinayeen cabasho ay ka qabaan dawladda Soomaaliya oo dhul ay sheegteen milkiyadiisa ku wareejisay shakhsiyaad iyo shirkado gaar ah. dhulkan oo ku yaal agagaarka kilomitir 4 gaar ahaan wadada garoonka diyaaradaha tagta ayaa baaxadiisu tahay mid ballaaran, waxaana dadkani sheegeen in looga kiciyay dan guud laakiin haatan loo adeegsanayo dan gaar ah. maxkamadda sare ee dalkan ka dacwood garyaqaankii dawladda xafiiska garyaqaankan 3 bilood dacwoonayay waa la xukumay dhulkaygii waxaa lagu xukumay 200 oo kun oo magdhowna in dawladdu bixiso shantaydii boosna la celiyo wata maxkamadda sare warqadaasi soo saartay ku taariikhaysan 5 bishii 12aad 2015 maalmo kadib waxaan u tagay taliyihii booliska warbal ayaa noo kaadiyo yiri wax aragnaa wixii waa dhamaynaynaa waxaan ka war hela hadda iyadoo cagafii ku jiraan oo leeyahay company ayada boorkay nabadgelyadiisaan sugaynaa yiri baa la siinayaa dhulkii kaaf iyo kala dheeri ka u dhigtaba ma wax la yaab laha meeshan ka dhacay annagoo dukumentigaasayna waa maxamed siyaad bare ninka la yiraahdo milkiyada sharciga ku soo baxay rajabuutadii wataas dhulka sabarloogii dhulka wakaas ninka la yiraahdo milkiyadii aan dhulkaas ku gatay oo laanshaha sharci ahaaneed oo wareejinta nootayada amin sheekh xasan cad u wareejiyay wataas ninka la yiraahdo naqshada dhulka uu lahaa wataas ayada waxa sharci ay jiraan haddana waxa lagu xujeeyay oo gudoomiyaha gobolka hore ii diray Umar Tugumbo la imaw wataas warqadii Umar Tugumbo anigoo shacabkii marastii meeshan laga jabiyay booskaygu wuxuu ahaa geedkaas talaalka ah ee labalaakada ah ayuu booskaygu ku dhex yaalay waxaan haystay ilmo 4 oo agoon ah annagu dawladda waxaan ka codsanaynaa inay hoos noo fiirso dhulka iyagina loo soo celiyo maxaan ku iraaday hantidayada dibna loogu soo celiyo dadka masaakiinta oo dhulka leh dhulkooda loo celiyaan leen dawladda uu celido ha siido way ka maarantaa Cabdishakuur Xuseen Shakra Home Cable TV